beelweynta reer shiikh muuse oo ka mid ah beelaha ugu ballaaran ee dega gobolkani togdheer ayaa kulan warbaahineed ay ku qabteen deegaanka barwaaqo oo dhaca koonfurta gobolka togdheer waxa ay shirkaasi ku cambaarayeen boqor axmed iimaan iyo xisbiga mucaaridka ee wadani oo ay sheegeen inay qodobo ay la galeen uu beeniyay xisbigaasi isla markaasina uu ka soo horjeestay waxaana halkaasi ka hadlay suldaan farxaan xasan siciid caaqil aadan jablibax caaqil yaasiin musharax axmed xuseen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa caleema saarin magaca muuse dheriyo gabooyo ka dhigay aan cidina calaama saarin ee boqorka muuse sheegtay beelaha muuse dheriyo anagu waa garaweyne inuu si kale wuxuu wadaabaanu aragnaaye magacana wuu sheeganaya wuu ku maxaabsanaya marna gabooyuu sheeganaya waxaan leeyahay horta ninkaas sidaasaa kaga hadal waxaan leeyahay xisbiga wadani calamadii baan u samaynay markuu ururka ahaa muuse dheriyaa u samaysay weligay waxaanu ku lahay xubin baarlamaankoo deegaanka iyo wasiir ayuu ku ballan qaaday markii aanu calamadaa samaynaynay shurug buu nala galay shurugii wuu ka baxay wadani wuu ka baxay muuse dheriyana wuu ka maarnay waxaanu leenahay qurbajoog iyo qolqoljoogba wax codahoo uu siin karaan ma jirto xusbiga wadani way ka baxday muuse dheriyo meel kastay joogto maanta cirro wuxuu ku fashilmay heshiiskii uu muuse dheriyo la qaatay waxaanu u sheegaynaa anigoo aan codka badinayn beelaha muuse dheriyo meel walba ha joogaan waxaan leeyahay waar xusbigaa wadani cod ha siinina cirro wuu ku fashilmay siyaasaddii beelaha muuse dheriyo waxaanu isugu nimi inaannu ku muujinno oo aanu aqoontayada iyo garashadayada aanu ku muujinno beelaha caalamkana ugu bandhigno in aanu tusno oo aan weli cabashada naga dhammaan beesha dhexe waa 69 ardaa 69 ardaaba waxa ay ku jiraan doorashada war waxaa annaga xabad nagu ururiyey waa maxay haddaanu muusanahay nin baa u imanayaa oo iska dabageeya waxaanu idin leenahay war dadka kala bartoondhayaasha waxaanu xaq u leenahayna waanu idinka fadhinaa ilaa aanu ka helaynana waa qaylinayna waxaan halkan ka cadaynayaa xusbiga wadani wuxuu ahaa urur wuxuu ahaa madax ka tiris beeshayda markan ku xareeyey ee aan sayladaa tubay ee aan kaga soo saaray codkaygii iyo madax tiriskaygiiba markii labaad waxaan iska sharaxay golaha deegaanka ee xusbiga codkaygii iyo maalkaygiiba uu iga jira waxa uu dhidbaha uu iskugu taagay oo codkaygii maanta waanu muuqan waaye isagu wuu arki waaye laakiin waxaanu caddaynaa inaan somalilan oo dhan haddaanu nahay beesha muuse inaanu qaadacno ayaanu ku ballan qaadanaa horta marka ugu horraysa waxay ahayd xildhibaanka hadlaya axmed dawaco oo in badan ka ahaa xisbiga wadani ilaa intuu ururka ahaa waxa weeye ahaa xisbigaa ku soo jiray xisbiguna wada garanayo waxaan u malaynayaa ninka ina iimaan la yidhaahdo boqorka sheeganaya axmed dawaco wuu ugu yimid xisbiga intuu la soo hadlay buu yidhi isma sharrixi kartid waxaad mooddaa inuu guddoomiyihiiba gacanta ku haysto guddoomiyihiina waaba u raaco wuxuu yidhi xisbigii axmed dawaco iskama sharrixi karo maanu filayn maanta taa laakiin waxaan leeyahay bulshaweynta reer sheekh muuse meel kastay joogto xisbiga wadani cid u codaynayso reer sheekh muuse ahi ma jirto waar idinkuna ha u codaynina baanu leenahay codkayga waanu kula noqonnay waxa kaloo iyadana aan kulleyla beeshu waa beel ballaadhane ka muuqanaynay xisbiyadoo dhan xisbiga kulmiye isaguna saas leeg buu noqday oo waxa weeye uu muuqan weyda beeshu waxaanu leenahay wax codaad siisaan yay jirin xisbiyadii waxaa nagala shaqeeyey waxa weeye xisbiga ucid faysal cali waraabe mooyaane weynay xisbiyadii kale faysal in badan baanu ka hiilinay laakiin waxaan maanta leenahay cabdiamiin cabdilaahi maxamed telefishinka caalamiga ee gobonimo magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer